ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ayaa maanta lagu sii sabootiyay magaalada Boorama isagoo ugu ambabaxay dhanka dalka Itoobiya una sii jeeda degmada Awbarre ee kilka shanaad ee ismaamulka dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble iyo waftiga ballaaran ee ku wehelinayay socdaalkiisa ayaa deegaanka tuulada Gorayacawl ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waxa kaga hor yimid madax dhaqameed ka socda degmada Awbarre iyo maamulka degmada Awbarre ee gobolka Jigjiga ee dawlad deegaanka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya waxaana halkaas si ballaaran loogu soo dhaweeyay ugaaska iyo waftigii la socday salaadiinta dhaqanka ee sii dhaweysay ugaaska oo uu ka mid ahaa Sultaan Saleebaan Cali Ismaaciil ayaa hadal kooban oo qaabilaada ugaaska uu ku wareejinayay madax dhaqameedada iyo maamulka degmada Awbarre ee gobolka Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya halkaas ka jeediyay waxaana sultaanka hadaladiisa ka mid ahaa halkani waa halkii hadda ka hor noogu dhiibteen muddadii aan ilaa xeebta iyo lughaye iyo saylax soo marinay iyo idinka maqnaa isagoo nabadaan idin keenay naga guddooma idinkuna maanta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما هتنتهين وغاسكا سيدي في عنيد يعني اللي يقول لي بلي عديات لوغو صور ليفتين واد وناك سنتهين وان اللي قرأ وريقني إذنكو هم حطن وان اللي يقول دوني ugaaska iyo waftiga la socday ayaana si diiran waxa ugu soo dhaweeyay dadweynaha aad u tiro badan magaalada Awbarre halkaas oo ugaasku ugu duceeyay dadkii ku soo dhaweeyay magaalada Awbarre ee gobolka Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ugaaska iyo waftiga ballaaran ee la socday ayaa laga sugayay deegaanka Dharwanaaje ee ka tirsan degmada Awbarre halkaas oo ay uga sii ambabaxeen ugaas Cabdirashiid iyo waftigiisu dhanka magaalada Dharwanaaje ee ka tirsan degmada Awbarre ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ayaa in muddo ah wuxuu socdaal ku marayay degmooyinka Saylac Lughaya iyo deegaano badan oo hoos yimaada gobolkan Awdal socdaalkan uu ugaasku uga ambabaxay dhanka kilka shanaad ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaana la filayaa inuu ku maro deegaano badan oo hoos yimaada degmada Awbarre Dambal iyo Jigjiga oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waana markii ugu horeysay ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi safarinta lagu ku maro deegaanada ay degaan beelaha ugaaska uu yahay tan iyo intii loo doortay dhaxalkii aabihii ugaas Rooble ugaas Doodi oo dawladii Mingiste ay ku dishay 1977 magaalada Jigjiga ugaaskaas oo kamid ahaa madax dhaqameedadii uu laayay madaxweynihii hore ee Itoobiya Mingiste dagaalkii 1977 ku dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ee Soomaali galbeed Haashim Sheekh Cumar Good Somali Sat TV Boorama